macallimiinta iyo howlwadeennada iskuulkan Gandhi Secondary School ee caasimadda Jamhuuriyadda Somaliland iyo ardaydaba aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta inaynu halkan iskugu nimaadno runtii qaran walba waxa uu leeyahay jiil dalkooga u soo kaca oo qarannimadan taabagalka maanta noqotay Jamhuuriyadda Somaliland mustaqbalkii berritooda aatiin farxad gaara waxa ii sii inaan saaka ku bilowno fasalkan oo dhammaantiin gabdha ah farxad gaaray runtii tahay waxaad ogtihiin sida macallimiintiina iyo madaxda wasaaradda waxbarashadu bay nii sheegeen waxaad barateen oo tiina kororsan doontii waxa weeye bacda kitaabillah waa dastuurkiina Jamhuuriyadda Somaliland oo runtii waxa ugu sareeyay Jamhuuriyadda Somaliland waxa saldhigu dastuurkiina Jamhuuriyadda Somaliland wax kasta oo diinteena ka hor imanayay dalka Somaliland wax kama jiraan weey marka waxaad barateen waa dastuur bayskiisa ku dhisan diinta islaamka wax kasta oo diinta ka hor imanayna dastuurkeenina uu reebaya marka fahamka noocaas inaad qaadataan inaad aqoon u yeelataan wadaniyada inaad aqoon u yeelataan dalkiina inaad aqoon u yeelataan gobolada kale iyo degmooyinka kale dalku farxad gaara ayay noo tahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi markii la doortay 2017 wuxuu ugu horeeyay ee uu qabtay waxay ahayd in wasaaraddan lagu soo daro qaybta dastuurka isagoo madaxweynuhu faham buuxana ka haystay qorshihiisuna ahaa jiilka soo socda in ay aqoon u yeeshaan dastuurkooda iyo dastuurka shuruucda ka farcamaysa ee wadaniyada marka qofku marka uu fahmo dalkiisa xaq uu ku leeyahay ayuu isaguna helaa xaq uu dalkiisa ku leeyahay marka haddii maanta la weydiiyo ama ay nigaba maqan tahayba madaxweynuhu horeeyay ee Jamhuuriyadda Somaliland ee soo kordhiyay weeyi in la barto dastuurka Jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waayo markaad aqoon u yeelato qaanuunka dalkaaga ayaad aqoon u yeelataa qawaaniinta kuwa kale ee dunida ka jira iyo kuwa kale dawladaha jaarka marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan laynagu tababaray inaad faham buuxa maanta ka haysatiin inaad aqoon buuxda u leedihiin dastuurka Jamhuuriyadda Somaliland iyo wadaniyadaba marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta inaynu halkan iskugu nimaadno dalkiinana inaad u yeelataan fiiro gaara u bixiiso kacayatihiin maanta Somaliland meesha ay marayso waa meel aad u wanaagsan mustaqbalkan soo muuqda maanta ay ugu weyn tahay Jamhuuriyadda Somaliland muuqashada maanta ictiraafkii Jamhuuriyadda Somaliland oo muuqdana cidda koobaad ee maanta nasiibka yeelanaysa ee dalkan oo la aqoonsan yahay qalin jabinaysa wax baratay shaqana helaysa waa idinka marka waa taariikh gaara waa nasiib adeertihiin jiilashii niga horeeyay ee dugsiga ka baxay kuwa maanta qalin jabinaya kuwa bilaa soo socdo qalin jabin doona laakiin idinku aad noqoteen dhalinyaro wiilal iyo gabdhaba leh oo Jamhuuriyadda Somaliland oo beesha caalamka kamida inaad maanta jaamacadaha ka qalin jabisaan iyadoo mustaqbalkiina cad yahayna aad waxa weey nolosha bilowdaan waxaan rajaynayaa mustaqbal wanaagsan guuleysta ifiya aakhiraba waxa koobaad ee aad fulisaana waxa ahay noqdo waa wareegtada Ilaahay weey kitaabka Ilaahay markaad aqoon u yeelataan ayaad fulinaysaan qawaaniinta kale dalkiinana marka diintiina barta quraankiina barta faham buuxana ka haysta inta maanta aad ka barateen dastuurkiina Jamhuuriyadda Somaliland waa wax weyn runtii dastuurkan sidayna taasi hadda ay sheegtay waad ogtihiin waqtigii waxa weey la aasaasay waqtigii la qoray iyo waqtigii dhaqangalka noqday iyo aftidii loo qaadayba dadka maanta Jamhuuriyadda Somaliland ku qoran dastuurkaasi magacdoodu waa dad aad maanta u kooban oo tiro kooban ay ka nooshahay dhammaantood maanta cid nool ma jirto laakiin dhaxalka maanta aad haysteen ayay liiga tageen dii maanta la weydiiyay yaa ku saxeexan dastuurka Jamhuuriyadda Somaliland madaxweynaha ku saxeexa waa kuma ma Allah u naxariistee Maxamed Xaaji Ibrahim Ciidan marka dastuurkiina Jamhuuriyadda Somaliland cidda ku saxeexan
ومحي الله نحرسته محمد حاج إبراهيم عيان أو مدحوينه لبعض جمهورية الصومال هكلا غيبنا الصومال لما وجمهورية الصومال إننا هي الصومال واحد نوضح يسوي جمهورية مركز واحد الرئيسين إنسان جمهورية الصومال هذيك اللي يد نسكو من نقرينا مركز واحد ديفرنت كي نوضح يد نسكو هيسان ناوي جمهورية مركز مدحونا جمهورية وزير وزارة وحبرشة جمهورية الصومال قدومية وحبرشة وزارة وحبرشة جمهورية الصومال الجول كمرد جعسما مركز جمهورية هرينيس تعالى إن شاء الله ونقول برارجينيا ونقول فرح سرهاي مستقبل وناكسن وحبرشدنا صفي عن إلهي هني قرب قلو عافمات كان الله نيسي ياديو والدكينا يدلكينا واحد كذا فرحين كرتانو كلها تا وواحد دلكينا لقوا أقولين أو لدى قالنتين iyo waalidkiina oo aad maqashiin wuxuu inaga reebo wuxuu in farar aad sameeysan waalidkiina labaadna waa macallimiinta macallimiintiina si fiican hadaad waa deecdaan idinkana baraaleynaa deeci doona